beesha wacaysle abgaal oo diiday in ay ka tanaasusho hanka doorashada baarlamaanka galmudug dhaqaale loo ballanqaadana waa ay iska diiday sida ilwareedyo lagu helaya ayaa dhinaca kale waxay sheegayeen oo magaalada dhuusamareeb joogay in beesha wacaysle lafta cali gaaf loo soo bandhigay dhaqaale si ay uga tanaasulaan xilka ay raadinayaan ee guddoomiyaha baarlamaanka galmudug kulan ay yeesheen xubno ka tirsan waxgaradka beesha iyo erge ka socotay xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ku yimid fashil sida la soo sheegayo waxa lagu ballamay waxay ahayd in doorashada la wada galo oo qof walba calafkiisa uu cuno ayna diiday beesha wacaysle inay ka tanaasulaan doorashada ay hamiyeen cabdinaasir aadan cusmaan ayaa murashax guddoomiyaha baarlamaanka galmudug kaas oo la leeyahay waxa uu qaatay warqad cadeynaysa isla markaana uu buuxiyay shuruudihii ay maalin ka hor soo gudbiyeen guddiga baarlamaanka guddiga doorashada galmudug madasha xisbiyada qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyo ayaa taageero dhaqaale waxa ay bixinaysaa baa la yiri oo ay la garab joogtaa cabdinaasir aadan waxaana ay ninkan isku hayb yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud cabdinaasir ayaa la hardami doona murashaxa isku beesha yihiin ee Cabdullaahi Axmed Cali Sowshine oo ay isaguna siiyeen guddiga doorashada shahaada murashaxnimada xilli Maxamed Nuur Gacal oo ra'iisul wasaare qeyr isku beel yihiin uu doonayo inuu ka dulqaado labada nin ee isku reerka ma cadda guuleysan doonta guddoomiyaha baarlamaanka galmudug balse cabdinaasir iyo Gacal ayaa labada shakhsi ee baratanka adag gali doona sida la leeyahay waxaana meeshii ugu adkeyd hadda ay maraysaa doorashada galmudug lamana saadaalin karo waxa isbedeli doona kulamadii ugu adka ayaa xalay ilaa shalay gelinkii dambe dhacay oo siyaasadda iyo arrimaheeda la guda galayo xilli berri oo jimcaha guddoonka baarlamaanka la soo dooran doono kadibna madaxweynaha ayaa lagu kala bixi doonaa iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda noqon doonta dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyrre ayaa lagu eedeeyay in uu handadaad ku hayo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug warar ayaa sheegaya in Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow Xuseen Iidow senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo waliba Yaxye Cali Xasan Yaxye Hareere ay dhammaantood bihiin shakhsiyaadka kambeynka u ah sida la sheegay ra'iisul wasaaraha isla markaana doorashada galmudug in lagu soo saaro Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor ay xabadka u garaacanayaan waxaana mas'uuliyiintan ra'iisul wasaaraha ka socda ay galmudug ka wadaan howlo ballanqaadyo ah kuwaas oo ah in Gacal oo loo yahay sida dawladda federaalka taageerada uu kaga haysto isla markaana isku beel yihiin ra'iisul wasaaraha hadduu ku soo baxo baarlamaanka galmudug ay heli doonaan fursado ballaaran hadda dawladda gaar ahaan xukuumaddu waxay haysataa 25 xildhibaan oo 20 ka mid ah ay ahlu sunna ka yimaadeen xudxudashada weli waa ay socotaa xildhibaano kale ayaana in la soo dumo ay doonayaan waxaa runa inay jiraan xildhibaano beelaha galmudug u dhashay oo haddana dhaqaale ka fiirsanaya danta dadka iyo deegaanka haddaba si hawshan ay ugu fusho waxa ay mas'uuliyiintan ra'iisul wasaare Qeyrre u xil saaray arrimaha kambeynka ama ololaha doorashada waxa ay u xulsul duubayaan iyagoo adeegsanaya dhaqaale badan sidii Qorqor madaxweyne ay ugu dooran lahaayeen xildhibaanada Gacalna uu ugu soo bixi lahaa baarlamaanka galmudug guddoomiyaheeda